Qalliinkan oo ka mid noqonaya qalliimadii ugu horreeyay ee dhakhaatiirta isbitaalka Shaafi ku soo kordhiyeen dalka ayaa ahaa mid aan hore noociisa loogu fulin dalka sida ay sheegeen khubarada dhanka qalliimada ee isbitaalka. Bukaanka oo muddo la xanuunsanaa buro kansar hunguriga cuna mareenka kaga taalay ayaa waxaa qalliin casri ah loogu fuliyay isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho waxaana loo adeegsaday qalabka casriga ah ee laserka ama laparoscopiga iyadoona gabi ahaanba meesha laga saaray hunguriga cuna mareenka oo uu kansar ku haleelay. Isticmaalka qalabka casriga ah ee laserka ayaa suurtageliyay in bukaanka isagoo aan dhaawac loo geysan laga saaro buradii haleeshay. Si aynu wax uga ogaano qalliinkan casriga ah ee lagu fuliyay gudaha Soomaaliya gaar ahaan isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho waxaynu la kulannay Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ah khabiir ku takhasusay qalliimada guud gaar ahaan qalliimada casriga ah ee laparoscopiga. Dhakhtarka ayaa wuxuu nagu warbixinayaa nooca qalliin ee bukaankan lagu fuliyay iyo marxaladihii kala duwan ay u mareen si qalliinkan casriga ah loogu fuliyo gudaha dalkeena Soomaaliya. Maanta waxay inoo tahay maalin farxad leh sababtuna waxay tahay markii ugu horeysay qalliin oo hunguri mareenka bukaan laga qalay iyadoon haba yaraatee wax jeexitaan lagu sameynayn bukaankaas oo qabay buro uga taalay hunguri mareenka oo nooca kansarka ahayd oo ku faafi lahayd. Marka waa ilaahay xamdigiis noo suurtageliyey in aan buradii iyo hungurigiiba ka saarnay ayadoo haba yaraatee wax jeexitaan lagu sameynayn oo qalliin casri ah oo wadanka aan horeyba loogu sameyn wadamo badanna haba yaraatee aysan suurtagal ka ahayn in lagu sameeyo. Taasna waxaa sababay hadday iskaashadaan dad aqoon leh wax walba ayaa suurtagal ka ah. Marka waa arrin aad iyo aad u fiican u wanaagsan in maanta hunguri mareenka qof Soomaaliya gudaheeda in qof looga bixiyo iyadoon la jeexaynin. waana u jeedaan bukaankii waa midigteedu fadhiya aad iyo aad u fiican yahay. Marka sidii caadada ahaan jirtayba isbitaalka Shaafi wuxuu ku suntan yahay ku calaamadsan yahay horumarinta caafimaadka wadanka iyo bulshada labadaba. Maxamed Cabdi oo ah bukaanka qalliinka casriga ah loogu fuliyay isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho ayaa inooga warramay sida ay ahayd xaaladiisa caafimaad ka hor inta aan qalliinka lagu fulin iyo waxa uu dareemayay hadda oo lagu fuliyay qalliin casri ah. Bukaan waxaan ay ka yimid magaalada Dhobley Jubbada Hoose ka mid ah xanuun baan u yimid isbitaal Shaafi oo ilaa muddo 2 bilood ah aan la xanuunsanayay. Xanuunkaas oo ahaa xanuun aad u xun oo qaybta oo hunguriga iga dhacay oo liqitaankii iyo cabitaankii iyo waxa iga digayaba uusan jirin buu ahaa. Muddo kadib ilaahay mahadii waa soo baxay waxaa yimid Muqdisho saa u socday waxaa yimid isbitaal Shaafi oo markii horeba aan xaaladiisa la socday oo khadkaan kala socday oo dhakhtar fiican oo Dr. Shaafici la yiraahdo uu joogay. qalliinkaygii waa lagu guuleystay waa la qalay qalliin walibana laser oo kii casriga ahaa oo Soomaaliya aan horey looga fulin baa lagu fuliyay. Haddii la yiraahdo liqitaanka oo kale cabitaanka cuntaanka wax walba hadda caadi waa cabi karaa. walaalkeen oo muddo ku xanuunsanaya 2 bilood iyo wax la jira muddo degmada Dhobley in aan soo gaarsiino isbitaal Shaafi Dr. Shaafici oo markaas waxa weeye si fiican u qaabilay una sameeyay operation aan hore loogu sameynin wadanka Soomaaliya si guud inoo cusub oo ilaahay noo suurtageliyay inaan heeshii dibadaha loo aadi lahaa inaan wadankeena maanta lagu qabanayo. waan u hambaliyeynayaa doctorka culays fara badan baan naga degay ilaahay baana ku mahadsan. waxaana u baaqayaa dadka Soomaaliyeed inay soo gaaraan doctorkooda iyo isbitaalkooda ilaahay isbitaal Shaafi oo ilaahay u fududeeyay wixii dibadaha loo aadi lahaa qarashka badan ku baxay dhibaatada badan laga marayay in ilaahay wadankooda gudahooda ugu keenay u suurtageliyay. ilaahay baana ku mahadsan.
aad iyo aad baan u mahadcelinayaa mahadsantihiin baan leeyahay dadaalkiinana waa aad iyo aad buu noo farax geliyey maasha allah sii dadaal oo dadkiina waxaa weeye insha allahu tacaala intaad qabateen in ka badanba waan idinka rajaynaynaa assalaamu calaykum bukaankan ayaa waxa uu noqonayaa bukaankii ugu horreeyay oo Soomaaliyeed oo qalliin noocan ku gala dalkeena Soomaaliya sida ay sheegeen khubarada dhanka qalliimada ee ka howlgala isbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho Mustafa Xasan Cabdi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho